dhulkeenana hooyo cilmigan dhexdiisa yaal fahankii lagu dhigi lahaa waa dhantaalan yahay afaf qalaad baa iskuulaadka lagu dhigtaa af Soomaali xumadu dhibkan bay leedahay iskuulla Soomaali laydeen kuma dhowo aqalka hooyadiin iyo aabihiina lagagama hadlo marka wax kasta waa inuu ku dhacdaa waxaas laga yaabaa inaad deegaan kale ama meel kale ku dhalatay ood ka soo jeedo geedkan anigu ma arag looyaanka la yidhaahdo anigu tusmaan ma arag laakiin waan aqaanaa annaga geed u eg baa noo baxaa mana nidhaahno dhulooyaan annaga xaggeena Soomaali galbeed adiga dhinacan ka degno annaga xayaab baa la yidhaha xayaabku geedka intuu guntiisa ka geedka guntiisa intuu ka soo baxo ayuu geedka ku marmaa saasuu ugu marmaa keligiisa mal bixi karo geelaa cuna xayaab baa la yidhaha xaggeena Soomaalidu laakiin geedkii dhulooyaha tashkiilahdiina xayaabkana wuu egyahay waanu ka duwan yahay saasoo kale geed intuu ka dul baxo ayuu saa geedka ugu marmaa midho cascas baa ka soo baxa caanuu leeyahay wuxuu leeyahay wax yaroo caanoo kalaa laga tuujiyo midhaha iyo caleentaba uu leeyahay bakteeriyada lagu daweeyaa waxaa lagu tuujiyaa meel haddii ay xoolaha iyo nabar tahay neef haddii waraaba qaniino haddii haragga intuu ka infection qaado meel kastoo infection leh haddii saa loogu tuujiyo mar unbuu gaadhi jiray adhowna malaha hadda uu dabar ku hay ma fahamtay dhulowyahan baa la yidhaha waa dha iyo la iyo a iyo w iyo yahan oo weliba space u dhexeeyo dhulowyahan baa la yidhaha waa geedkaas weeyaan waa sida dhulowyahan intuu laan iskaga dhigay dhexda loogu maray dhaqsoo loo baxay ma fahamtay maxaan kuu sameeyaa ayuu yaa hadday hooyada af Soomaali ku wari arniyo reebaadiyo waa dad cajaa'ib waa idinka xariibsanahay waa idinka fiicannahay waa idinka jaanis fiican marka idin leeyahay waxaa leedahay idinkuna dadka reemiga isku haydaa reemiga geed ilaa geedihii baan isla dhaafilaanay hadda yaa hadhowna waxaad odhanaysaa waa reebaadiye qofkaasi dee waa reebaadiye dhalay ee odhanaysaa intaa canjeeradu cunaysay maa dhulooyahana idin dhaafay Soomaalida anuu qofkaan keligii ma sheegaya Soomaali oo dhan baa sheegaya dhaqankaaga inaad barato dhirtaada barato taariikhdaada barato oo diintaada barato waa wax wanaagsan afka Soomaaliga iskuullada in lagu dhigo way fiican tahay historyga Soomaalida in la dhigtaana way fiican rawanto runtii xanuunina ciyaarta ka dhaafa comedies ciyaarta ka dahiya